Muammar Gaddafi waxa uu ahaa hogaamiye Afrikaan ah oo muddo dheer haystay awood, laakiin maxaa dhacay sidee CIA-da iyo wadamada reer galbeedka u isticmaaleen sirdoon, dacayad iyo jabhado si ay u dumiyaan xukunkii Gaddafi. Muuqaalkeena ayaan kugu muujin doonaa siraha laga qariyay dunida ee ka dambeeyay burburkii Liibiya. Waxaana muuqaalkan kaaga jawaabi doonaa su'aalaha kala ah: sidee Gaddafi ku yimid xukunka, awoodana ku helay, fikradiisii African United iyo lacagta dahabka sidee CIA-da ugu hortimid mashruuciisa, dagaalkii 2011 dhacay roolkii ayay ka ciyaartay NATO, maxaana dhacay markii Gaddafi gacanta lagu dhigay. Gaddafi waxa uu ahaa mid cabsi geliyay reer galbeedka, wuxuuna lahaa hami ah in uu mideeyo Afrika uuna tuuro doolarka Mareykanka, laakiin isla fikirkaasi ayaa sababay in sirdoono badan ay damcaan in ay meesha ka saaraan Gaddafi. Maanta waxaan kuu sheegayaa siraha ka dambeeyay burburkii Liibiya iyo sida CIA-da Mareykanka iyo xulafadooda ay ugu lug lahaayeen dilkii Gaddafi. Haddaba aan kaaga jawaabo su'aashii ahayd sidee Gaddafi ku yimid xukunka, awoodana ku helay. Gaddafi wuxuu xukunka qabsaday 1969 isagoo 27 sano jir ah. Kadib afgambi military wuxuu la yimid fikir cusub oo ka dhan ah gumeysiga iyo reer galbeedka. Wuxuu lahaa aragti midnimo iyo lacag ka madax banaan doolarka. Wuxuu maalgeliyay jabhado badan sida ANC-da Koonfur Afrika, RA-da ama Irish Republic Army iyo kuwo kale badan. Haddaba aan kaaga jawaabo su'aasha ah maxay CIA-da u nacday Gaddafi. Gaddafi waxa uu ka madax banaanaa siyaasadda galbeedka, wuxuuna diiday in Liibiya ay noqoto saldhig military ee reer galbeedka leeyihiin. Wuxuu bilaabay in uu maalgeliyo ururo, sidoo kalena wuxuu la yimid qorshe uu rabay in uu doolarka kaga soo horjeesto isagoo lacag kale ku bedeli rabay. Intaas waa isla fahanay. Haddaba aan kuu sheego dagaalkii dhacay 2011 banaanbaxyo ayaa ka dhacay Liibiya 2011. qayb ka mid ahna waxay ahaayeen kacdoonkii Arab Spring, laakiin waxa dhacay waxa ay ahaayeen wax la qorsheeyay. CIA-da iyo sirdoono kale ayaa taageero u fidiyay mucaaradkii hubeysnaa ee ka soo horjeeday Gaddafi. Warbaahinada reer galbeedka ayaa faafisay dacayado laga sameeyay Gaddafi. NATO ayaa soo faragelisay si ay shacabka u badbaadiso, laakiin qorshaha saas ma ahayn oo dana kale qorsheysan ayaa jiray. Haddaba sidee loo dilay Gaddafi? Gaddafi waxa uu isku dayay in uu baxsado, waxa uuna galay god uu ku dhunto, laakiin diyaaradaha NATO ayaa duqeeyay. Dagaalyahano ka tirsanaa mucaaradka ayaa qabtay Gaddafi, waa ayna toogteen isaga oo dhaawac ah, waxa ayna ka duubeen fiidiyoo sharaf dhac ah. Warbixino badan ayaa sheegaya in sirdoono ajnabi ah ay bixiyeen xogta ah meesha uu ku dhuumanayay Gaddafi. Kadib dilkii Gaddafi, Liibiya waxay gashay burbur, foodo iyo laba dowladood oo isku haya. Cid walbana oo aragti leh waxa ay arki kartaa in Liibiya loo burburiyay dana siyaasadeed iyo mid shidaalba. Mashruucii lacagta waa la burburiyay dilkii Gaddafi. Kadib shirkadihii shidaalka oo ay lahaayeen reer galbeedka waxa ay heleen mashruucyo dilkii Gaddafi. Kadib ciidamadii NATO iyo kuwa CIA-dana waxa ay galeen Liibiya iyagoo aanan haysan fasax ama ogolaansho. Ugu dambeyntii Gaddafi waxa uu lahaa aragti Afrika u wanaagsan, balse waxa uu noqday bartilmaameedka caalamka. Dagaal xoog leh iyo sirdoon ayaa loo adeegsaday si loo xiro boga oo furay Gaddafi. Haddaba Liibiya waxa ay ku jirtaa burbur ay adag tahay in ay ka baxdo. Su'aasha waxa ay tahay marka yeedan ugu jirtaa burburka Liibiya. Haddii aad muuqaalkani ka heshay, like saar, kanaalka Sahanka Dunidana subscribe saaro. Waadna ku mahadsantahay daawashada muuqaalkani.